بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 453 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود وأحمد والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 10kii bishii 11aad dulqicda sanada 1445 isla markaana waafaqsan 18kii bishii shanaad sanadka 2024. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac daray almuntakhabu min saxiix sunan nabawiya qaybtiisii ku saabsanayd al-aadaab al-islaamiya, khaasatan al-ukhuwa al-islaamiya iyo shuruudaheedii iyo waxyaabaha qofka looga baahan yahay. waxaanu ka soo hadalnay aadaabteeda: ikhtiyaaru lasdiqaa saalixiin, xusnu lkhuluq ayaanu soo maray. labadaas qodob baan soo qaadanay. maanta waxaan qaadanayna xusnulkhuluqa fadaaisha ay leedahay. xusnulkhuluqu si guud ahaaneed baan xadiidkeed usoo qaadan, xusnulkhuluq inay qaybta ugu fiican tahay, laakiin fadaa'il bay leedahay khaasa, miisa maaragtay khasaa'is iyo mumayizaad maaragtay khaas u ah ayay leedahay xusnulkhuluq. marka ciwaan waxaanu ka dhigaynaa fadaa'ilu xusnulkhuluq. xusnulkhuluqa akhlaaqda oo fiican, fadaa'isheeda iyo natiijada iyo thamarada ay leedahay iyo fawaa'ideeda iyo fadaa'isheeda. marka ciwaankeedu marka waxaanu leenahay fadaa'il xusnulkhuluq. markaan saa dhahno ciwaan ka dhigno, kow fadaa'isheeda waxaa ka mid a xusnulkhuluqi calaamatun calaa kamaali liimaan. xusnulkhuluq waa astaan iyo calaamad bay u tahay iimaanka kaamilnimadkiisa. qofka akhlaaqda fiican ee muslimka daliil bay u tahay iimaankiisa inuu kaamil yahay, oo nuqsaanul iimaan uusan ku jirin, oo iimaankiisa kaamil yahay. astaanta lagu garta waxaa ka mid a xusnulkhuluq baa ka mid a. xadiidkeennan waxaa soo saaray alimaam axmed musnadkiisa iyo abu daawuud. tirmidina wuu soo saaray isagoo dheeri wata weliba, wakhiyaarukum maaragtay liahli xadiid nooca maaragtay lafdi noocaas. inta markaanu ka gudbo xadiidka macnihiisa muxuu yahay, abu hurayra radi allahu tacaala canhu wa ardaa ayaa wuxuu leeyahay, rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam: akmalu lmu'miniina, mu'miniinta kana ugu kaamilsan iimaanan xagga iimaanka, axsanuhum kana ugu fiican weyan khuluqan xagga akhlaaqda. waa xadiid kooban wey, laakiin diintii oo dhan buu koobahayaa. akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa. halka waxaa laga qaadanaya ikhwati filaahi ahamiyada iyo qiimaha ay leedahay akhlaaqda fiican. akhlaaqda fiicanna waanu soo tacriifinay, maaragtay badlul maaragtay nada ama badlul cataa wa kaful ada maaragtay iyo wasabru calaa maaragtay cala annaas ama calaa adaahum. yacni inaad wax allaale maaragtay wixii fiican iyo ixsaanka aada samaysi, wixii dhibaato xaggaada ka imanhayaana ummadda aad ka qabati, wixii dhib oo xaggooda kaaga yimaadana aad ku sabirta. badlu lcataa wa kafu ladaa wasabru calaa adaahum. marka waa saddexdaa qaybood, maaragtay saddexdaa jumla lagu cabira. yani wanaagga ood bixisi, ood ixsaanka aad samaysi, ood ku bakaylin, dhibkaada oo dadka ka qabati, wixii culays oo xaggooda kaaga yimaado ood ku sabirta. waa xusnulkhuluqa wey. xadiidkan wuxuu noo faa'iideynayaa iimaanku inuu ziyaado oo nusqaamo baan xadiidkan ka qaadanayna. maxaa yeelay manhajka ahlusunna waljamaaca aliimaanu yaziidu wayanqus weye. yaziidu bitaaca wayanqusu bilmacaasi. dadkuna isku darajo kamay aho fil iimaan. xagga iimaanka ummaddu maaragtay mu'miniintu laysuu calaa daraja waaxida, yatafaawatuun. kamaalu maaragtay iimaanka kamaalkiisi iyo nuqsaantiisi way ku kala duwan yihiin. marka xadiidka nabigu wuxuu u sheegay akmalu muminiin bal kamaalul iimaan baa laga cabiray. macnaheedu muminiintu markay iimaan wada leeyihiin, haddana xagga kamaalka way kala sareeyaan. marka ninka ugu kaamilsan oo iimaankiisa ugu kobac badan yahay oo ugu sareeyo waa ninka u akhlaaq fiican wey. macnaheeda mafhuumul mukhaalafa, ninkaana akhlaaqdiisu ayna fiicnayn, naqsul iimaan buu qabaa, iimaankiisa waa naaqis wey.
macnaheedu qofka hadduu akhlaaq xun yahay wuu gaaloobay looma jeedo ee kamaalul iimaan buu waaye galaaskaada soo maaragtay biyaha haddaad ku shubti darajaad buu yeelaa dhexdaad geyn kartaa meel ka sarreysaad geyn kartaa waad buuxin kartaa markaad buuxiso tifsiisi darajo ka sarreysa ma leh laakiin buuxintaa wixii ka hooseeya darajaad kala duwan wey marka nus liter hal liter laba liter hal liter iyo bar waa darajaad wey marka nabigu wuxuu ka cabiray akmalu lmu'miniina iimaana iimaanka mu'miniinta kana ugu kaamilsan xagga iimaanka waa ninka akhlaaqda fiican wey maarta akhlaaqdu maxay noqonaysaa akhlaaquka maca allah subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala saad oola dhaqantay oo qadihiisa iyo qadarkiisa aad u hoggaansatay waajibaadkiisa iyo awaamirtuu ku siiye aad u hoggaansatay waxyaabaha uu kaa reebay aad ka hadhi waxyaabahaasoo dhan waa dhaqanka ilaahay maarta maca allahi aad la dhaqmaysa akhlaaqdaada fiican wakadalika mucaamalatuka maca annaas dadka qaabka aad oola dhaqmaysa wixii wanaagood haysa inaad maartay ku saacidaysa wixii dhibaato xaggaada ka imanaya aad dadka ka ilaalisa wixii xaggooda dhibkaaga imanaya aad u dulqaadatay badlu lcataa wa kafu ladaa wasabru calaa adaahum waa muhiim weeye innagu waxaanu jecel lahay inuu dadka xaggooda dhibba kaaga imanin hadduu dhib kaaga yimaadana aad iska difaacdi oo intuu ku yidhi ka badan aad samaysa laakiin middaa kamaaluliimaan inaad dhibkaada aad dadka ka qabati wixii kaaga yimaadana aad ku sabirta wixii kaaga yimaado dhibana aad u dulqaadatood ku sabirta iyo adiga xaggaada wixii wanaagana aad gudbisa marka xadiidka wuxuu noo sugahayaa kamaaluliimaan marka xusnulkhuluq waa astaanta iyo calaamada ku tusinaysa shaksigan inuu kamaaluliimaan ku sugan yahay iimaankiisu inuu sarreeyo shaksi akhlaaq fiican oo daacada ku fiican oo ammaanadiisu ay fiican tahay oo mujtamaca uu la dhaqmayo ay fiican tahay ilaahay cibaadaadkiisa iyo waajibaadka ilahay qaabka oola dhaqmay ay fiican yihiin astaan bay u tahay ninkaa inuu iimaankiisa uu kaamil yahay walidaalika saa darteed waxay dhahaan macaasida qofku wuxuu ugu dhacaya macaasida iimaankiisi baa hoos u dhacay kulamaa iimaankaadu hoos u dhaco kulamaa inaad macaasida ku dhacdi baa ku sahlan amaa iimaankaadu hadduu sarreeyo iimaankana wuxuu ku kobcaa daacada kulamaa iimaankaada oo sarreeyo kulamaa macaasidii inaad ku dhacdi way adagta ikhwat alislaam walimaan hunaa waxaan rabaa inaa hal masalo aan baraarujiyo oo laga yaabo dadku in badan cagsi inay u isticmaalaan mar haddii lagu yidhi kamaaluliimaan waxaa lagu gaadhaa xusnulkhuluq akhlaaq fiican akhlaaqdii fiicneedna lagu tacriifiye wixii wanaaga xaggaada inaad bixiso iyo ixsaan iyo wixii aad bixin karto wixii dhibaataana ummadda maartay oo dhibkaadana aad ka qabatay wixii xaggooda kaaga yimaadana aad u dulqaadatay akhlaaqdaa fiican cidda ugu mudnaan badan inaad kula dhaqantay waa ehelkaada wey aruurtaada zawjadaada reerkaada aad mas-uulka ka tahay baa ugu mudnaan badan akhlaaqdaa fiican inaad kula dhaqantay laakiin maanta waxaad arkaysaa shaksi waxaad arkaysaa ummadda kale markuu la dhaqmahayo dhaqan fiican buu leeyahay laakiin gurigiisi iyo caruurtiisi iyo reerkiisa markuu u yimaado ninkii banaanka ama mabahaba dhaqan adag oo qallafsan oo fadaada oo caruurtii iyo reerkubay kala cararhayaan buu ku dhaqmay waxaa kamaaluliimaan marka waa dhaqan xun wey ninka xusnulkhuluq ma leh akhlaaqdiisu ma fiicno qofkaas kamaaluliimaanna kuma jiro waa nooc tanaaquda weeyaan waa qofka camalkiisa daahirka iyo baatinku iskhilaafsanaayeen wey yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun wey war bini aadamka qaabkaad oola dhaqmaysa maxaa ka duway reerkaada waxaad kula dhaqmaysa marka haddiiba lagu yidhi kamaaluliimaan waxaa lagu gaadhaa akhlaaqda fiican cidda ugu mudnaan badan reerkaada iyo caruurtaada wey caruurtaada iyo reerkaada inay kugu farxaan markay ku arkaan isgu kaa yimaadaan sheeko wadaag aad yeelataan ku maartay wax kuu sheegi karaan waxna aad u sheegi kartay kana qaadan kartay wax iyaguna ay kaa qaataan mucaamalatul xasan xusnul mucaamala reerkaada ugu mudnaan badan marka arrintaas dad badan baa ku khatalmay inay xusnul khuluq ay tahay dadka banaanka aad fiican aad kula dhaqanti gudahaada iyo reerkaadana aad kula dhaqmin waa dhaqan xun oo fiicneen wey marka xusnul khuluqu reerkaadii ka bilaabmaysa iyo caruurtaada iyo eheladaada iyo maartay qaraabadaada iyo waalidka iyo walaalaha iyo ehelkaada dhan baa ugu mudnaan badan waa ku nabiga calayhi salaatu wasalaam waa xadiidkiisa ahaa maaragtay
xusn maartay suxbati saaxiibtinimadkayga iyo mucaamaladayda fiican yaa ugu mudnaan badan ummuka nabigu calayhi salaatu wasalaam waa hooyada iyo waalidkaabaa ugu mudnaan badan saa darteed waalidka iyo ehelkaabaa ugu mudnaan badan dhaqanka fiican ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa dhaqankoodu fiican yaha naga dhigo idan halkaa maanta waxaanu qaadanay ciwaanka aanu nidhi fadlu xusnulkhuluq xusnulkhuluqa fadliga uu leeyahay kow waxaa ka mid a annahu calaamatun calaa kamaali liimaan xusnulkhuluqa calaamad buu u yahay kamaaluliimaan qofku inuu ku sugan yahay calaamada lagu garto waa dhaqanka iyo calaamada fiican wey maartay akhlaaqda fiican wey xadiidkan abu hureyra ayaana ku tusinhaya waana arrin muhiima weeyaan inuu qofku dhaqankiisu hagaajiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa ilxusna wa sifaati alculaa inuu xaqa nadsano uguna irsaaqo xaqa raacitaankiisa ikhwatii fillaahi xusnulkhuluqa iyo dhaqanka fiican rabbulcaalamiin nabigiisa markuu taskiyeynhayey cibaado badan kumuusa taskiyeynin cilmi badan kuma taskiyeynin xoolo badan kuma taskiyeynin madaxtinimo uu yahay kuma taskiyeynin maaragtay nabinimo kumuusa wuxuu ku taskiyeeyey akhlaaq fiican wa inaka lacalaa khuluqin cadiim buu nabigu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa taskiyo min rabbilcaalamiin ka timid ila nabiyi calayhi salaatu wasalaam nebi maxamedna u timid oo lagu taskiyeynhay wa inaka lacalaa khuluqin cadiim ba nebi maxamedow akhlaaq cadiima oo weyn oo aada u qiimo badan baad ku dul sugan tahay baa li maxaad u malayn wuxuu rabbulcaalamiin uu yidhi waa cadiim alla shayguu yidhi waa shay cadiim oo weyn intee in leeg baad u malayn shayga qadarkiisa inuu dhan yahay nebi maxamed dhexalkiisa cidda wadatana saasaa laga rabaa gabadh muslimada haddaad tahay wiil muslima haddaad tahay oo dhaxalkii nebi maxamed wata aad tahay diintiisii iyo aahaartiisii iyo sunnadiisii ku dhaqmaaya aad tahay fa calayka bixusni alkhuluq akhlaaq fiican inaad ku dhaqanto qowlkaada iyo ficilkaada iyo ictiqaadkaada iyo daahirkaada iyo baatinkaada intuba inay isku mid noqdaan baa lagaa rabaa waquuluu linnaasi xusnaa war dadka hadal fiican u dhahli waquuluu linnaasi xusnaa imaamu shaaficina wuxuu xasinuu alfaadakum erayaasha iyo kelimaadkaad isticmaalaysaan hagaajiyu yidhi imaamu shaafici raximah llahu tacaala idan waxoo dhan waxaa isku fufuuqsaday raadkii nebi maxamed iyo sunnadiisii iyo wadadiisii ninka raba waa inuu akhlaaqda fiican ku dadaalo maxaa yeele rabbulcaalamiin wuxuu ku taskiyey akhlaaqda fiican buu ku wa innaka lacalaa khuluqin cadiim baa nabiga lagu yidhi idan cid kasta oo ummadda nebi maxamedana oo nabiga rumaysan oo jecela wadadaasaa laga rabaa nebi maxamed baan jecelahay wadadiisa inaan qaadana waan rabaa akhlaaqdayduna ma fiicnaanayso sax moo ninka beenaalaha nebi maxamed akhlaaqdiisa ma wato ninka khaa'inka nebi maxamed akhlaaqdiisa ma wato akhlaaq fiican ninkaa kuma sugna ninka saariq iyo tuuga ninka daalimka ummadda ku xadgudba wahaakada ninka khashaashka ee ummadda wax u hoosgeliya ninka zaaniga ninka taariku salaadka ninka maanicu zakaadka ninka maarata qaadicu raximka qaraabagoyska ninka jidgooyaha qaadicu duruqa giddi kuwaasoo dhan way khilaafsan yihiin akhlaaqdii nebi maxamed bay khilaafsan yihiin idan maxay ku jiraan fii naqsi liimaan bay ku jiraan kuwaas kamaaluliimaan ma haystaan wa ilaa waxaan mayna sameeyeen haddii iimaankoodu kaamil yahay salaada kamuusa tageen zakada muusa diideen qaadicu dariiq muusa noqdeen dulmi iyo xadgudub lamuusa yimaadeen wax muusa xadeen khashaash iyo khaa'in muusa noqdeen dadka wax u hoosgeliya gabadhu xijaabka kamayna tagteen xushmadii iyo ixtishaamkii kamayna tagteen maaragtay lamayna timaadeen waxyaabaha laga xishooda lamayna timaadeen weliba khaasatan zamankan aanu joogno waa zaman aad moodiba wixii xumaa oo dhan inay banaanka la keenay wixii fiicnaana la kansalayba baraha bulshada iyo meel kaste iyo tiktok iyo meel kaste waxa weeyaan rag iyo dumarba intii xumayd baa banaanka lasoo marin intii xumayd baa la keeni waxyaabihii laga xishoon jiray waxaad arkaysaa gabdho ku hadlay oon damba ka lahayn malaayiin baa laga yaaba boqolaal baa ama kumayaal baa laga yaaba inay daawan hayaan waa gabadh muslimada islaam bay sheeganaysaa soomaaliyad weeye dadkan ay la hadlaysa waa dad soomaaliya luqadeeda garanhaya waxay doontay iskaga hadli wiilkuna waa saas oo kale wey marka waa akhlaaq xun wey arrintaas ummadda nebi maxamed haddaa tahay nebi maxamed qof ku dayanhaya akhlaaqdan qaado markaa akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa maaragtay waa akhlaaqda fiican u fiirsada qur-aanka
imisa waxyaaba uu quraanku sheegay oo ahkaama uu sarbeeb u sheegay maartay ninka iyo xaaskiisa galmada isu galmoonayaan imisa ilaahay sarbeeb uu ku sheegay waqad afdaa ba'dukum ila ba'din يعني قبلها أتكلم تكتين الزوجات كيناها وحاسيسانها كقاضنين وقد أفضى بعضكم إلى بعض قاركين قارك كلو قاري شركي إنه استابطي على عبره وفير سدا قال ما إيه فلاني منا لما دهن يا جماعة واحد منا لما دهن ما أرت فلما قضى منها زيد زيد منها وطرة بقى عبره زينب بنت جحش يزيد مركو دنتيسي يوحي وكرمست أما قلت marka yaanu ku guurinay lama dhihin kelimadii sarbeeb baa laga cabiray idan ikhwati fillahi waa zaman waxaanu joognaa aad iyo aad akhlaaqdu xunta ilaahay akhlaaqda noo hagaajiyo hal mar baan xadiidka lafdigiisa ku celinayaa waxaanu u dardaarmayaa naftayda iyo qof kasta oo Soomaaliya naftiisa u dardaarmaya oo nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo diintiisa jecel akhlaaqda inuu hagaajiyo kuna sifoobo maarta kamaalul iimaan uu ku sifoobo الحديث 453 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا رواه أبو داود وأحمد والحديث صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.